maanta waxaynu marti uga nahay madaxweynaha inuu halkan afkaartiisa inala wadaago laakiin waxaan dhowr qodob ka oranayaa dardaaranka hore uu noo siiyay iyo aragtidii uu doorashada ku galay iyo barnaamijkii uu ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre geeyay xukuumadda ay geysay golaha shacabka waxay ku dhisan yihiin 6 tiir aad ogtihiin 6 tiir waxa asaas u ah in dalkan aan haba yaraatay waxba laga qaban karin ilaa laga xoreeyo khawaarijta ku habsatay muddo haatan dhowr iyo 10 sano ilaa 15 sano dadka nolol ciriiriga gelisay meesha ugu xanuunka badan ee ciriiriga u badan dareentay ee si weyn ay waxyeello u soo gaarsiiyeen nimankaasi waa magaalada Muqdisho ma ay dhacdo adduun weynaha meel hal mar 500 oo qof 300 oo qof ama 1000 qof ay ku waxyeeloobaan dhimasho iyo dhaawac Soomaalida qaar waxay ku maamaadaa wan weyn ilaa la gowraco indhihiisa cirka ma arkaan nimankan shabaaba ilaa aad iska dhicido inaad dad tahay kuma haystaane badaaca yar oo ay ayagu leeyihiin inaad tahay ayay ku haystaan waxaan leeyahay dadka reer Banaadir caasimadda Muqdisho dadka ku noolow khawaarijta marada ka hurgufta iska bixiya adikaydu ku guntigiina ay ku jiraan khawaarijtu gurihiina ay joogaan darisay idin leeyihiin guriyaha adika leeyihiin inaad ka ijaarataan baabuurta ay leeyihiin ayaa agaarkiina marta xaafadiina ag joogtaa waxaan rabaa maanta inaan ku ballanno khawaarijta inaan iska bixinno oo aan waa dhilqan noogu jira marada aan ka urgufanno aan iska bixinno intaas misla qaadanay dadka ayaa soo gaaray meel ay yiraahdaan waxaan rabaa wadada aad ku taagan tihiin iyo dadaalka aad muujiseen intaba waa dadaal sax ah ku taagnaada wadadaas nimankaasi in la iska dhiciyo oo na dhaafa la yiraa moogiye wax kala ma laha